عبد الله محمد أحمد haye رقية محمد أحمد أنا دلي haye أنا أبي هذا haye وكاهد شريف أحمد عبد الله shariif axmed cabdullaahi haye ninka wuxuu ahay lagu nikaaxiyey walaayadeedu ama adigaa dhiibe mise waa من دي من أنا haye ما أعرف oo xaqiiqa أو حقيقة haye gabadha meherkaas maxaa la dhihi karaa gabadhaas lagu meheriyo وحكم جيران haye دولة الصومالية وحنا باقرا هكوان توبان arrinkaas أرنكاس weliba xildhibaano ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya ayaa arintaas aad u haahayaan inkastoo dowladda ayna wada haynin arrinka هكوان توبان xildhibaanadaas maxaa ugu baaqi lahayd وحنا باقرا هكوان توبان الله يقبضه gabadha waa laga boobay waa guriga weligeeda ka tashan يقولون لقيت شنو weligeeda uga tashan gabadha aabaheedana tahay يقول أبي هذا أنا عبد الله محمد أحمد أنا ليرة ruqiyo cabdullaahi محمد أحمد أنا أبي هذا wax xiriira Allah weliba abeed. wax kula soo sameey maar ما أعرف sidii gabadhaas lagaa wata ما haye marka gabadhaada afduub miyaa lagaaga haystaa أفطول واسطة haye dhibkan dhacay waa maxay ku yimaadeen horta gabadha adeerkeed inuu dhibkan ku dhaco wiilka aan dhahay wiilka adeerkiis dhibka ku dhacay micnaha ma arrintan sababa oo sababo awgeed haye oo ku dhacay oo ku dhacay sababaas mana faahfaahin kartaa adoo ma faahfaahin karo okay Allah ku caafiyo adeer wax kale oo ku diri kartaa ma jirtaa haye hada dawladda maxaa ka codsanaysaa adiga dawladda waxaa ka codsanayaa in gabartayda iyo soo badbaadiyaan haye oo gacantaada lagu soo celiyo haddana wiilkii waa wiil isna muslim oo Soomaaliyeed inkastoo wuxuu ahay isku jinsi aad ahaan maxaad leedahay haddii uu kaa soo doonto mar labaad si sharaf leh oo gabadhaada gacantaada ku soo celiyo taas ana ay jirtaa haye go'aanka adigaa iskale anaa iskale waa gartay okay mudan hadda wax wada hadal ma kula yeesheen maya ilaa hadda maya maamadii way weli waa xiran tahay waa xiran tahay